kulanti wanaagsan dawdiyaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan maanta barnaamijkeena ku soo qaadi doonana waxa kamid ah ciidamo cusub oo Turkigu tababaray oo maanta ka yaabsaday madaxweyne Farmaajo iyo bandhig cajiib ah oo maanta ay sameeyeen ciidanka xoogga ee Turkigu tababaray xog laga helay Saciidani oo doorashada aqalka sare u adeegsanaya siyaasad ka yaab badan mid Axmed Madoobe xilli Dani uu kulamo xooggan la qaatay ismida Puntland jawaab lama filaan ah oo uu helay Dani ayaan idiin soo gudbin doonaa insha Allah guddiga doorashada Hirshabelle oo afka furtay digniin culusna u diray mucaaradka maxay ka yiraahdeen khilaaf ka hareeyay iyo faragelinta Fahad Yaasiin wararkan kalena waxa kamid ah wasiir qaab yaab leh u shaaciyay in beelaha Abgaal iyo Xawaadle ay ku dulman yihiin maamulka Hirshabelle xilli banaanka uu keenay xogo qarsoona iyo ra'iisul wasaare Roble oo dib ugu soo laabtay dalka isla markaana la filayo in uu soo saaro go'aamo la xiriira doorashada wadanka qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana Sabti 31 bisha 7 ee July sanadka 2021 barnaamijka wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka hadaba daawada ka qayb qaada dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaane fadlan nala faafiyo wararka oo gaarsiiyay saaxiibadeena idinka oo ku shaargareynaya baraha bulshada mahadsanidin aan ku bilownay wararkeena ciidamo cusub oo Turkigu tababaray ayaa waxay maanta ka yaabsadeen madaxweyne Farmaajo kadib markii ay soo bandhigeen bandhig cajiib ah oo ay ku sameeyeen xirada Turkisom ee uu leeyahay Turkiga hadaba madaxweyne Farmaajo ayaa halkaasi ku sugnaa marka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay halkaasi ku soo bandhigayeen tababarkooda madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qayb galay maanta munaasabad qalin jabin ah oo dufcadii saddexaad ee Layli Saraakiil iyo dufcadii afraad ee Layli Saraakiil xigeen ah kuwaas oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa si weyn ula yaabay qaabka casriga ah ee ay tababarka u haystaan saraakiishaas isaga oo ammaan weyn u jeediyo dawladda Turkiga oo ka qayb qaadatay tababarka ciidamadaasi ciidamadan ayaana waxa ay tababarka ku qaateen xerada Turkisom ee ku taala duleedka Muqdisho halkaasi oo saldhig weyn uu ku leeyahay Turkiga waxa ayna sidoo kale saraakiishan soo qaateen tababaro kala duwan oo ku saabsan militariga Soomaaliya madaxweyne Farmaajo oo munaasabadaas ka qayb galay ayaana bogaadiyay dadaalada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka ah ay u tababaraan dawladda Turkiga xerada Turkisom oo uu maanta markaasi madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si toos ah kala socday dhaqdhaqaaqyada iyo bandhigyada ay sameynayeen saraakiishan iyo saraakiil xigeenada ayaa waxa lagu soo bandhigay gaada ka ciyaar iyo waliba sidoo kale waxyaabihii ay soo barteen muddadii ay ku jireen tababarkaasi madaxweyne Farmaajo ayaa isagu hore u ballan qaaday in uu kaalin weyn ka qaadan doono tayeynta iyo sar u qaadida militariga Soomaaliya waxaana dhowr jeer oo hore oo uu ka qayb qaatay bandhigyo sidan oo kala ah uu shaaciyay in loo baahan yahay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya garab istaag weyn loo muujiyo madaxweyne Farmaajo ayay lama filaan ku noqotay in ciidamada Soomaaliyeed ay tababar noocan oo kala haystaan waxa qaybaha hore ee wararka warqaa TV ayaad la socotaan imikana hadii aynu eegno wararkii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda xog la helayo ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu dadaal xoogan ku bixinayo in dad ka tirsan maamulkiisa ay ku soo baxaan doorashada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya isaga oo adeegsan doona siyaasad ka qatarsan midda uu adeegsaday Axmed Madoobe oo doorasho ka bilaabay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaar kuwa maamulka Jubbaland madaxweyne Dani ayaa waxa la tilmaamay in uu kulamo la qaatay ismada Puntland inkastoo kulankaasi uu noqday mid natiijo fiican uusan ka helin Saciid Dani hogaamiye Puntland isla markaana loo sheegay in doorashada uu qabto si cadaalada Mr Dani ayaa sida la xaqiijiyay riixaya in dad uu ku kalsoon yahay oo ka tirsan wasiirada iyo mas'uuliyiinta dawladdiisa ay ku biiraan siyaasadda labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya inkastoo oo isagu awood badan uu u yeelan doono in uu soo saaro senatarada aqalka sare ee maamulkiisa ku matali doona federaalka Soomaaliya liiska xubnaha aqalka sare ee laga soo doortay Puntland oo dhawaan madaxweynuhu shaacin doono waxaa la filayaa in ay ka soo muuqdaan dad ka tirsan dawladda Puntland oo u sharaxan kuraasta beelahooda sida xogaha qaar ay markaasi tilmaamayaan
dhinaca kale kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka dalka waxaa u sharaxan xubno ka agdhowdhow madaxweyne Deni oo isugu jira mas'uuliyiin dowladeed iyo saaxiibadiisa kale islamarkaana taageero ka helaya dhanka madaxtooyada ee Puntland. Saciid Deni ayaa doonaya in xubnaha labada aqal ee laga soo doorto Puntland ay ku soo baxaan dad isaga taageersan si markaas ay ugu codeeyaan murashaxa uu isagu wato madaxweynaha ee Soomaaliya. qorshahan ayaana waxa uu noqon doonaa mid sidoo kale si aad loo hadal hayn doono haddii uu adeegsado madaxweynaha ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdulaahi Deni. warka ku soo kordha ee magacaabidda ee liiska ee xubnaha u tartami doona aqalka sare ee Puntland ku matali doona federaalka Soomaaliya. wararkeena kale ayaan idinku soo gudbin doonaa. waa hagaag barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaad la socotaan. Warqad TV ayaad naga daawanaysaan imikana. guddiga hirgelinta doorashooyinka ee Hirshabelle ayaa beeniyay in uu jiro khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay xubnaha guddiga iyada oo ay maalmihii u dambeeyay soo baxayeen warar ku saabsan in khilaaf xoogan uu hareeyay guddiga doorashada ee Hirshabelle sidoo kalena faragelin qaawan uu ku hayo taliyaha NISA ee Fahad Yaasiin. guddiga oo arintaasi ka hadlay waxa ay sheegeen in hawshooda haatan ay si caadi u wataan waxa ayna tilmaameen in uusan jirin wax khilaaf ah haba yaraatee oo soo kala dhex galay dhexdooda. waxa ayna ku tilmaameen wararka la soo galiyay baraha bulshada maalmihii la soo dhaafay inay yihiin kuwa been abuur ah oo guddigooda looga been abuuranayo. qoraal ay soo saareen waxay ku sheegeen guddoonka iyo guud ahaan guddiga hirgelinta doorashooyinka ee dowladda Hirshabelle waxay cadeynayaan in warkaas yahay mid aan sal iyo raad lahayn oo looga dan leeyahay in lagu marin habaabiyo shacabka Soomaaliyeed ee sugaya hirgelinta doorashadii madaxda dalka ku heshiiyeen. dhinaca kale guddiga waxa uu laalay islamarkaana uu beeniyay in la isku hayo xoghayaha ee cidda noqonaysa iyo xorheesaadka guddiga uu yeelanayo. waxayna mar kale yiraahdeen guddigu waxa uu cadeynayaa in ilaa hadda uu leeyahay gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen kaliya inta ka dhiman sida xoghaynta iyo guddi hoosaadyada la dhisi doonana sida ugu dhaqsiyaha badan. waxaa ka codsanaynaa saxaafadda iyo cid walba oo wax tabisa in si mas'uuliyad ku dheehan tahay u gudbiyaan warbixinada ay la wadaagayaan bulshada loogana fogaado wax walba oo caqabad ku keeni kara doorashada ee laga warsugayo ayay ugu dambeyntii qoraalkooda ku yiraahdeen guddiga ee hirgelinta doorashada ee dowlad goboleedka Hirshabelle. arintan ayaa waxay ku soo aadaysaa iyada oo dhawaan si aad loo hadal hayay in guddiga doorashada ee Hirshabelle khilaaf xoogan uu ka taagan yahay isla markaana uu jiro khilaaf iyo arrimo kale oo ku saabsan in faragelin lagu hayo guddigaas. wararka qaar oo soo baxay maalmihii dambe waxay sheegayeen in Fahad Yaasiin uu faragelin ku hayo guddigaas balse ugu dambeyntii hadda iyaga ayaa warkaasi si cad u beeniyay. qaybaha dambe ee wararka ayaynu isla soo gaarnay. wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cali Caadle ayaa markii ugu horeysay si faahfaahsan uga hadlay hanaankii lagu dhisay Hirshabelle. wasiir Caadle ayaa sheegay in maamulka Hirshabelle dhismihiisii koobaad lagu dhisay orod ayna ku dulman yihiin beelaha Xawaadle iyo Abgaal sida uu hadalka u dhigay. waxa uu sheegay in Hirshabelle caqabadaha ugu waaweyn ay la socon laadahay ay ka mid tahay beesha Xawaadle oo diidaneed hanaankii loo maray dhismaha Hirshabelle markii hore iyo markii dambaba. Hirshabelle beelaha Xawaadle iyo Abgaal waa ay ku dulman yihiin oo iyaga ayaaba mooryaanta ka ah maamulka sababtoo ah 99 xildhibaan oo Hirshabelle ah ay ka kooban tahay labada beel ee xildhibaanada ay ku leeyihiin marka la isku geeyo waa 29 xildhibaan inta kalena waa beelaha kale marka 19 laga jiro tiradaas waxay muujinaysaa inaysan waxba ka ahayn Hirshabelle Abgaal iyo Xawaadle ayuu yiri wasiir Caadle. wasiirkan ayaa intaasi ku daray in xildhibaanada Hirshabelle sharci ahaan markii hore ay ka koobnaayeen 71 xildhibaan balse qancin dheeraad ah oo la sameeyay cidii tabasho muujisaba in xildhibaanada loo kordhiyo ay gaartay 99 xildhibaan oo aysan xamili karin Hirshabelle sida uu hadalka u dhigay. hadalkan ka soo yaray wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabelle ayaa imaanaya xilli Hirshabelle jiritaankeeda ay si weyn uga soo horjeedaan beesha Xawaadle oo muddo 8 bilood ah ka hortaagan in uu beledweyne tago madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaaw Xuseen. arintaasi oo xiisad weyn abuurtay oo xitaa shaki gali karta sida magaalada beledweyne ay doorasho uga dhici karto inkasta oo la doonayo in is-afgarad lagu dhameeyo arrimahaas oo idil. ugu dambeyntiina ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo safar shaqo ugu maqnaa maalmihii la soo dhaafay dalka Ingiriiska ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay.
ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho kusoo dhaweeyey labada gole ee dowladda federaalk ah ee soomaaliya xubno ka tirsan iyo sidoo kale saaxiibada ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble. ra-isul wasaare roble ayaa sidoo kale la filaya inuu bilaabo kulamo iyo go'aamo uu soo saaro kuwaasi oo ku saabsan xaaladda guud ee waddanka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey warkeena tan iyo warkaan war la mid ah. Intaaynu dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.